kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamij gaar ah ama waraysi gaar ah oo aanu la yeelan doono gudoomiyaha xafiiska imtixaanaadka qaranka Soomaaliland Daawud Axmed Faarax oo aanu doonayno inaanu ka wareysano xafiiska imtixaanaadka qaranka habka uu u shaqeeyo iyo waliba muddooyinkii ugu dambeeyay ama sanadkii ina dhaafay aan idhaahde waxa Soomaaliland ay ka qaadeen imtixaanaadkii ugu saameynta badnaa marka xagga ilaalada laga hadlayo oo doonayo mowduucyadaasi inaan ka wareysto ee gudoomiyaha xafiiska imtixaanaadka qaranka Soomaaliland ee ku soo dhaw telefishinka caalamiga ee Bulsha TV ugu horeyna waxaad nooga xog warantaa xafiiskan iyo xilligii la aasaasay. Bismillahir Rahmanir Rahim. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آل محمد وصحبه وسلم. مركز كواد وحنا قيارنتي بولشة تي في أو أب رنتي تي في آد ولا شقية وحبرشة مركان كأجن حق برنامج كأقون شيء يجو هذا يشير ورئيس جو رنتي أنت بدل نوجس حفيز نوجي مادة أنا ونكو احترامنا رنتي ونوريستا haddaan arintan ka war kaaga xoog warama xafiiska waxa la aasaasay 9695 1995 ilaa 96 baa ardaydii ugu horeysay dugsiga dhexe ay ka baxeen fasalada sideedaad dugsiyada sarena waxay ka baxeen 99 2000 ilaa 2000 oo afon foradii waxaan aad iyo aad ilaahay ugu mahadinaynaa laga soo bilaabo waqtiga in ragii gacanta ku hayay badidoodii ay wali runtii gacanta ku hayaan ilaahayna ku asturayo ilaa waqtiga laga bilaabo arday badan oo Soomaaliland ay runtii ka guuleysatay xafiiskan oo ka soo baxday oo aan oran karo maanta badidoodu qarankay u shaqeeyaan ummadda u shaqeeyaan wax iskood u shaqeystay wax qaranka u shaqeeyay wax dibadaha ku maqan oo qaar ka mid ah dhaqaatiir ka yihiin Mareykanka qaar kale jaamacadaha dibadaha wax ka dhigaan ilaa Turkiya ilaa meelo fara badan waa wax ilaahay lagu mahadiyo runtiina anigana waxaan nasiib aan u yeeshay in ardayda maanta aan ku faano oo aan ahay gudoomiyihii ugu horeeyay ardaydii form 4 Soomaaliland ardaygii 01 aan uga bilowno rool numberka aan nasiib u lahaa maalinta ilaa maanta aan nasiib u yeeshay waana ilaahay baan ugu mahadinayaa ilaa maantana aan joogo ka ahay wali gudoomiyaha xafiiska imtixaanaadka marka horta xafiiskaas ku bilaabmay marka waxaan la soo marnay runtii hawlo fara badan dhibaatooyin fara badan xafiiskana waxaan garanayaa aanu qol yaro wasaaradda waxbarashada gudaheega runtii ay aanu ku jirnay 3 qof 4 qof aanu marka runtii ahayn kaararka gacanta aanu ku sameyn jirnay gacanta lagu qori jiray sawirka gacantaasana ku googoyn jirnay waxaan oran karaa runtii yani dhabar adeeg badan baa lagaga soo baxay dhaqaaluhu iska liitay waxa gacanta ku hayn jiray agaasimaha guud ee wasaaradda iyo agaasimayaasha waaxaha ayaa shaqada gacanta ku qaban jiray because shaqaale kale oo guna la siiyo marka looma hayn waxa lagu shaqeynta inteeda badan tabarruc waxaan runtii kaalinta ugu weyn ka soo qaatoon aasaaskiisii xafiiska agaasimihii ugu waqtiga dheeraa wasaaradda waxbarashada ilaahay caafimaadka u siyaadiyo Xuseen Cilmi Warsame oo maanta ba nooloo jooga runtii ayaa kamid ah ragii marka shaarka ula baxay ee runtii sida dhabta ah noola shaqeyn jiray waxa kale oo kamid ah ragga imika rag waxa barasaabka sanaag baa kamid aha maxamed Timbaro oo ahaa isaguna gudoomiye imtixaanaadka oo iga horeeyay waxa kamid ahaa nin la yiraahdo Maxamed Haybe rag fara badan Allah u naxariistay waxa kamid ahaa nin kale oo isna dhintay oo ahaa la oran jiray magaciisa imika runtii liqsanahay macallimiin fara badan iyo rag imika ba nool Maxamed Axmed Xasan Maxamed Qalinle Cabdiraxmaan Ibrahim waxa intaan ka sheekeynay waa ragii mas'uuliyiinta gacanta ku qabtay waxa inta dheer macallimiin wanaagsan oo runtii reer Soomaaliland oo aad nooga caawin jiray hawshaas siday u xafidnaan lahayd waxa kale aad iyo aad ugu mahad arjacayl halkan mar haddii aad weydiisay bilowgiisii ragii sida tabarrucan lagu shaqeeyay waxa kamid ah nin sarkaal logistikada UNICEF haysta la yiraahdo Maxamuud ama ku magac dheer Cawaale si tabarruca noola shaqeynayay runtii oo iyagu waliba labada nin Cawaale iyo Rashiid
mishiinkaanu xataa ku shaqeynayna habeenkaa kusoo jeedayno iyagaa noo keeni jiray mishiin shiyaalka nimankaas waxaa odhan karaa qaranka ayadeed wax tareen ilmahooga lacagna maanu siin jirin lacagta la qaadaa waxay ahayd $2 baa kaarka laga qaadi jiray $2 baa dadka shaqeynaya marka dad fara badan oo halka kusoo koobi jireen waliba runtii aan u ducaynayaa wax alla wixii ka soo qayb qaatay maadaama bil barakaysan oo Ramadaan ku jirno inuu Ilaahay miisaankooga xasanaadka ugu daro waana waxa suurta gelisay kol Ilaahay baa idmay oo amarka iskale inuu xafiiskaasi istaago suma ka bacdi cidii kale ee gacan ka geysatay ba Ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu miisaanka xasanaadka ugu daray kadib waxa lala soo rafaadaba markii dambe hay'adda mucaawinooyinka dibadda u qaabilsan Ingiriiska la yiraahdo DFID ayaa baarlamaanka Somaliland booqasho ugu yimid waxay ka ballan qaadeen wax qabadyadii waxa kamid ah waxaan u dhisi doonaa Somaliland xafiis imtixaanaad oo madax bannaan xafiiskan bay beriga markaa runtii aaseen xafiiskani sidaas uu ku aasaasmay dhaqaalahaysa ugu badan waxa bixin jiray hay'adda la yiraahdo EU-da ayaa bixin jiray European Commonwealth kaas naga caawin jiray aad ma taqaanaa u bixin jiray lacagta 100% baa oran karaa intii hore laakiin marka laga soo bilaabo imika ilaa aan yiraahdo 2010kii laga soo bilaabo runtii waxa aad gacanta ugu haya inteeda xoog gale waxa gacanta ku haya qaranka Somaliland u sii badnaato waliba imika miisaaniyada ugu fiican loo u baahnaa sanadkan baa runtii ugu jirtay miisaaniyada marka sidaas uu ku soo socday tiro fara badan oo ardayana runtii ka baxday sanad ka dambeeyana dad rabtaan buug baa jiraan ka diyaarinay oo la yiraahdo ma taqaanaa waqtiga 96 ilaa 2015 buug aan dad doontaan idin doono oo ka qornay baa jira runtii oo ka diyaarinay oo horumarkii iyo garaafkii uu soo maray xafiisku sidoo isku bedelayay kolba inta arday u fadhiisanaysa imtixaanka inta iskuule noqonaysa ilaa maanta oo dugsiyada dhexe ilaa 122 baa sanadkii dhaweyto arday baa ahaan kuwii u fadhiistay sanadkana way ka sii badnaan doonaan waa dugsiyada dhexe kaliya kuwa sarena waxa weeye ilaa 100 dhowdhow 110 arday ayaa sanadkii dhaweyto u fadhiisatay marka waxa weeye tadawur aan sanad ku darin runtii halka marka la marayo waxaan jeclahay inaan intaas waa horumarkiisii waxaan oran karaa xagal daac baa ku yimid xaqii ardayda marka laga soo bilaabo 2007 wixii ka dambeeyay xaqiiqatan ilaa maanta warwar fara badan waxa nagu haya waxbarashadii tayadeedii oo hoos u dhacday xaqii imtixaanaadka ardayda u fadhiisanaysa oo runtii aad moodo in ay halkii uu ardaygu ku dadaali jiray wixii ardaydii ka horeysay 2007 ilaa wixii ka soo horeeyay waa ragga maanta adduunyada iyo Somaliland ba ugu baraysan ama ka muuqda haday tahay iskoodina u shaqeystaan ama hay'ado u shaqeeyaan ama haday qaran u shaqeeyaan runtii oo scholarship-yada iyo markay caalamka tagaanba haday ciidamada noqdaan iyo haday civil noqdaanba ka muuqda oo biladaha iyo darajooyinka sare ku soo baxay 2007 laga bilaabo wixii ka soo dambeeyay intii waliba aan yiraahdo bahalka technology-du si casriyoobaysay 4G-gan iyo smartphones-kan iyo balaayadan inoo yimaadeen labada af leh oo dashar iyo khayrba looga faa'iideysanayo ardaydeeni waxay ku dhaqaaqeen oo kaliya inay bahalkii uga faa'iideystaan xagga sharka arintaasina waa arin mustaqbalka Somaliland khatar weyn ama mugdi weyn gelinaysa haddaan laga hortagin waayo dal aqoon buu ku hormaraa aqoontu inay sii kordhaan rabaa oo ardaygu sanad ka dambaysa inay ardaydeenu ka sii fiicnaateen rabnay laakiin sanad ka dambaysa ardaydeenu waxay bilaabeen bootin iyo kalaaskoo laga boodo inuu adu ardayda ku tartanto hebel jaamacadii bay dhamaysatay iyo hebel jaamacadii buu dhamaystay iyo master buu hebel qaatay iyo BA buu qaatay BS buu qaatay laakiin aan la isweydiin yaa way hooseysaa laakiin waxaad moodaa waayo taana daliilkeegi maanta aan tusaya arintaana dhaliisheedu qaranka ragna lagu dhaliili maayo wasaaradda waxbarashada lagu dhaliili maayo xafiis imtixaan lagu dhaliili maayo waalidka iskale waalidku wuxuu raali ka yahay
arday baa wada dhigtaa fasalkii sideedaad buu dhigtaa ee dugsiga dhexe isagoo fasalkii sideedaad dugsiga dhexe dhigta ayuu haddana fasalkii form 1 isaga ka horeeyay sanadka hore ardaydii ka baxdayna form 1 buu dhiganaya waxaan uu waalidka u saaraya waxa weeye waalidku dhaqaale ku bixinayaan ka soo qaad maamulo bilaa damiir ama macallin bilaa damiir hadduu ogolaaday ardaygii oo dugsiga dhexe dhamaysan inuu fadhiisto dugsi dhexe dugsi sare hadduu fadhiistay adduunyo akhri isagu ilaahay kala xisaabtamaya because ardaygaas ahayd inuu maamuluhu weydiiyo waxa laakiin ka siiyaa badan waalidka dhalay ee lacagta ku bixinaya inankii inuu fasal sideedaadna dhigto dugsi sarana dhigto ee ka yeelay oran waayay hooyar qofna ilaahay laba qalbi uma sameeyne why sideed fasalka sideedaad ana adu dhigan kartaa fasalkooda dhigan kartaa maan imtixaanaanad geleyn fasalka sideedaad moona imtixaan ku sugayn kan sare ee koowaad maan imtixaan ku sugayn waxa imika markaa taagan oo imika barnaamijkiisa taagay oo waliba iyagu isla qumayeen ardaygii oo meelaha ka buuqaya oo leeyahay buuq baan sameeynaya mudaharaad baan u buuqaya oo isagu waliba isla qumayay damiir xumadiisa ardaygii wuxuu ku leeyahay afartii sabab waan dhigtay anigu war afarta sano dhigatay waa afartii kama baad bixin dugsi dhexe sidee dugsi sare u dhigatay adoo leedahay afartii saraba waan dhigtay bal aqliyada ka waalidow isweydii toddobaatan arday baa imika iskuulkan maxamed axmed cali shalay oo maamulaha nuug diibnay oo le waxaan dhiganay eedalkiina waanu dhiganay form 1kiina waanu dhiganay maanta form 4 baanu lahay ardaygay mar wada kala ka baxeen eedkana maanta form 3 buu fadhiyaa iskuulada dalka gobolada iyo caasimadda form 3 buu fadhiyaa ardaygu wuxuu rabaa marka daweyna ama caruurtii naga adkaato deegatooda u sii deyno wanda iska deyna imtixaanadan iyo kharashaadka dawladdu $1 milyan baa lagu kharash gareynaya imtixaanka loo fadhiisanayo ardaygiina marka waxa weeye adduunyada ma keentay inuu dib ugu noqonay halkee adduunyada laga yaqaan arday wada dhigta fasalka sideedaad iyo fasalka koowaad dugsiga sare wada dhiganaya cross multiplication ka caynkaas ee isku talaabta noocaasi halkee adduunyada ka jirta majin baa dhigta insi kumaynu maqal haddayna ahayn system jin ku leeyahay weligeed maynu maqal intaynu wax ku soo dhex jirnay waxbarasho daadaasaynu ku waxbarasho ku gaarnay ulaanu ka soo bilownay ilaa maanta saasaan waxbarasho u soo dhex taagana weligii wax la bootinayay iyo waxa ku dhaqmiya maynu arag tacliintuna saasay dhuux iyo tayo ku lahayd wardaba dhinacna halkana wasaaradii baa laga caayay dawladii baa laga caayay markaas ay caruurta waxba la bara oo sidee wax lagu bari caruur ay waalidkoogii baabiinayaan oo iyagu dabada jiidayaan aad ruqaninkii laha dabada haya cidna ma kicin karto markaynu xaqiiq ku wada hadal weey waad kula safan tahay indhaha intaad ku dhufato ma tahay war maxaa ku diiday fasalkaaga wanka u gal markuu ku leeyahay labadan baan wada dhiganaya eedkiina dhiibu ku gudbaya foorkiina dhiibu ku gudbuu rabaa marka ma dhiiba ya dhaxal ku noqonaysa inankaynu ka rabnay inuu A iyo B oo hadduu ugu hooseeyo khasaare si inoo keeno waad aragteen ardaydeena maanta ama way wada dhacayaan markii sanadkii dhawata si qarannimo loo ilaaliyay xoogga saarnay waad arkaysaa 1800 baa ardaydii soo booday saki kuma jiro ardaygan qaarkood halkan waxaan ku hayaa oo jecel maanta inaan tuso waxa weey waxaad qarsato way ku qarsaa wax damba qarin mayno wax alla wixii ceebe jira waynu sheegaynaa imika halkaas shahaad baan ku hayaa waa inan magaceega sheegi mayno ma jeclina magaceega sheegno inantani waxay shahaadada dugsiga waxaan soo rognay xeer ah si ardayga loo ogaado 4 sano inuu dhameystay waa in waxaan iskuulada farnay wareegta digreetan soo saarnay sanadkii hore aan leenahay waa in lagu soo lifaaqaa shahaadadii dugsiga dhexe arday wali waqtiga dugsiga dhexe ka baxay si ay noo ogaano yaa boodiyay ayaan darro waxay noqotay inankii 12 sano uleyntu ka soo bilaabay ilaa 12 sano dhiganayay waxa imtixaankii la fadhiisanayo ka sarreeyo waliba oo ka grade sarreynaya ku dhaxday daaqada ka galay oo jambiga iska qabsaday gaariga oo socda jambiga kaga booday
cid kasta sabab u noqoto aduu raba daawud ha u noqoto cid kale ha u noqoto waxa yaa qof la sheegay wax qiimo ilaahay ma jirto hebel baa sabab noqday waxa sheegaysa ma jirto laakiin khasaaruhu gurigu ka soo baxay iyo naftiisu ku dhacaya mana dareemayo inantan waxa may soo marin iskuulba may soo marin wixii ka horeeyay garamayna anagu shahaadada waxa lahaa oo sanadkii ugu dambeeyay qaatay hada waa sanadkii imika kaga baxay waa sanadkii imika ina dhaafay imika inankii shahaadada lahaa shahaadan laga soo foorsadgariya laga soo qaatay sanadkan isaga form 1 buu ahaan lahaa macnaha waa form 1 buu ku fadhiyaa shahaadadan waa la soo foorsadgariya inta la soo qaatay shahaadadiisii ayay inantan magaceegii ayaa shahaadadeedii intii la masaxay oo laga masaxay oo saxiixyadii iskaan lagu qaaday oo la photocopy gareeyay aniga kaygii kii agaasimaha guud ayaa waxa la sameeyay intii la photocopy gareeyay ayaa inanta magaceegii ma jeclina magaceega sheego ayaa magaceegii halkaa lagu soo qoray dabadeetana markii lagu soo qoray inanka iskaan marka sheegaya shahaadada asirkeyga ninka lahaa waxa lahaa maxamed saciid maxamed cali waana ku daba jirnaa isagana way aw shahaadadiisa qof aan secondary ba dhamaysan dugsi dhaxaba aan dhamaysan oo ka bixina uu siiyay waa ku daba jirnaa secondary uu ku jiraan kaga daba tagi doona isagana qoortaan soo qaban doona insha Allah biidnillahi alkariim haduu ilaahay yiraahdo way wax marka forgery baa la isku wada kaalmaysanaya halka ay dhig imika waxa inantan markaan ku qabanay waxay rabtaa sanadka inay form 4 u fadhiisato maxay hadaba keeni inantaas form 1 may dhigan oo form 2 may dhigan oo form 3 may dhigan oo form 4 bay imika haday rabto formkii uu soo buuxisay formkayga wata way soo buuxisay mana jecliyadana sawirkayga inaan aad u bandhigno ma jecli waka iyada sawir soognahay waa garan halka ay inaan ka soo qaado isagana magaciisa sheegi maayo isagu waxa weeye shahaadadan isaga lahaa wuxuu ka baxay sanadkii dhaweeyto wuxuu ka baxay isagu 2015 2016 wuxuu ahaan lahaa sanadkan form 3 uu soo dadaalay isagu form 1 iyo form 2 uu soo dhigtay form 3 buu xaq u leeyahay isagu shahaadadiisii dugsiga dhexe ee ahayd waa kan wanaga halka ku soo dul qornay anagu wanagaan idhi waa form 2 soo maad garan sanadkan wuxuu ka baxay iskuul leeyahay Saciid Daawud ayuu wuxuu ka soo baxay 2015 2016 iminku form 3 u gudbi lahaa waxa weey 15 16 eerkii buu ka baxay 16 17 oo sanadkii hore abu form 1 ahaa sanadka wuxuu ahaan lahaa 17 18 form 2 3 ma waa form 2 waxa uu kaga qoran waa form 2 inankaasi Saciid Daawud waa saaxiib ku yaala ayuu ka soo baxay shahaadadiisu buu ka dhigay isagoo khiyaamo kale oo si fog muu sameyn halkay shahaadadiisu 15 16 ahaan lahayd ayuu ka dhigay uu masaxalkii 15 16 saxiixayagii intayadii caadigii buu qaatay wuxuu ka dhigtay 13 14 waa form 2 isaguna halkii ardayga inantaasi soo qaadatay oo form 1 ka ahaan lahaa sanadkan isaguna sanadkan form 2 buu ka ahaan lahaa wuxuu isna noo soo galay form 4 soo qaado inakan inantan waa inan iyaduna ilaahay amriga horta waxaan aad ugu hambalyeeyay hablihii tacliintii way ku soo jeesteen laakiin meel qaldan bay kaga soo jeesteen badidoodu waayo inantu imika hablo meel walba jaamacadda markaad tagtid saddexdii saf markaad martidba saf wax dhiban baa inama inta kale waa hablo Allah ay noo barakeeyo iyaga aqoontoodu waxbay taraysaa reerkii dib ugu noqonaysaa oo raaskoogii dib ugu noqonaysaa oo nafteeda dib ugu noqonaysaa laakiin ku bixi maysa balwad iyo balaayo baas waxay taayinta ku keenaan aad baan ugu hambalyeynaa laakiin waxa laga digayaa waa de khasaare haddii hablo khiyaamada inaga bartaan gurigii bay khiyaamayn oo reerkii bay khiyaamayn oo ayaan dar hablaheenu ma geeyaan waan uga digayaa in khiyaamada la inaga daayo okay ka kaalay irantani magaceega waxba sheegi mayno shahaadadan ay sidato waxa iska lahaa
nin la yidhaa ibraahim maxamed axmed aadan baa lahaa inantan baa soo qaadato intii sawirkii inanka laga fujiyey inantii hore oo kale adu tabtii inantii hore oo kale ayaa la sameeyey dabadeetana waxa lagu dhajiyey sawir hablood marka halka waxa ka muuqata horta anaga wayna caayayaan wasaaradana way caayayaan waxay ka dhigayaan wasaaraddu tu aan waxba ogeyn oo iska socota xafiiska imtixaanaadkana adeer geesiyaal aqoon-yahano dhiigoogu ku baxay oo lagu aasaasay habeen iyo maalin u soo jeeday ku cirraysay iyagoo tin madoobay tin cad isku bedeshay intaana waxa laga taxadirayay in cadaalad la maamulo nin waliba sidoo dooraha u qaato waa cadaalad baa lagu maamulayay waa tamaanta ina karsiisay in sidaa seerfarkii aynanka dul fadhiya mar alla marka sidaa foomka loogu dhiibo aw markaaba kilig intuu siiyo aw leeyahay kare foom ma gaadhin dhinaciiga riixa waa laga soo shaqeeyay waxaana mahadda koowaad iskale ilaaha noo sakhiray in arrintaasi noo dhib yaraato waxa kaloo mahadda labaad aan siinayna qarankeena Somaliland oo la shaqeeya xafiiska hadday noqoto wasiirada iyo hadday qaranka guudba tahay oonan runtii ma taqaanaa si hawlkarnimo ah noola shaqeeya cid kastoo wuxuu uga baahnaaba waxaan uga baahna way nala qabataa inantaasi sanadkii dhaweyto ayaa shahaadadaasi nalaga iyaga baxo wuxuu ahaan lahaa form 1 waa inuu sanadka form 1 ku jira inantaasi soo siiyay isagana waa ku daba jirnaa inantaasi 8 may soo dhiganba ma hayna 8keegii waxay noo soo qaatay shahaadadaas ha sanadkan 17-18 waa kan ha 17-18 ayay inantani ma taqaanaa waa foomkii dugsiga sare ay noo soo buuxisay sanadkan bay ka baxday inantan bay ka soo qaadatay waxay ka soo dhigatay sidii kuwii hore inan bay iyadu laakiin halkii ku hore inama ahayd kuwani waa tani waa inamo dugsigay waa inan laba hablood baa kala qaatay 31 May bay ahayd ayay inantaasi ka soo baxday hore ka soo bedelatay iyadu iskuul bay inantani taasay sheegatay shahaadadii in iskuul 31 May ka soo baxday ayna ka soo baxay sanadkii 13-14 waa sanadkan ardaydeenu rabnay in form 4 ka noqdaan marka laga soo bilaabo inay 13-14 ka baxeen ayay sanadkan form 4 inoo noqonayaan shahaadada marka waxa loo kansal gareynayaa loo baabiinayaa in 13-14 lagu fariisiyo marka mana ahayn 13-14 ama sanadkan buu ka baxay ama sanadkii hore ka baxay ardaydii sanadadii hore ka baxday laga bilaabo sanadkii imika waxa marka adaba ayaan darra ah oo saxaafada iyo waalidka cid walba u sheegay waalidow waxa weeyi waa daadaa soo bixiyay waxa weey markaa isweydiintu ay tahay dadku dadkii maynu doorsoonay oo waynu rogmanay mise tacliintii baa rogmatay marka shahaadadii ardaygii sanadkii waxa dhici karta marka eeg ardaydani inay si bootina iskuulada ku dhiganayeen laakiin waa xeerkeedii bootintaasi waa xeerkee la waafajinaya xuquuqdii ardaygii intuu soo bilaabay fasalka koowaad ka soo bilaabay dugsiga hoose ilaa ka 12aad soo dhiganayay xuquuqdiisa yaa ilaalinaya haddaba waalidow ama arday waxaad ogaataa ninka markaan inanta imtixaan ka qaadnay inuu fariisino maxay keenaysaa ilaa kaas oo ardaygaasi isagoo sanadkii koowaad imikun sanadkii dhaweyto ka baxay form 1 ayuu haddana rabaa inuu form 4 inoo fadhiisto marka meesha waxa weeye ayaan dar hadday ku jirta marka waxaan leeyahay aan qarankana ugu baaqayaa de gurmad bay u baahan tahay arrintaasi arday badan baad markaa gudoomiye sheegtay in aan sanadkan aanay suuragal ahayn inay ka qayb qaataan oo markaa bootin soo sameeyay ardaydaasi ma kuwa dawliga u badan yihiin mise kuwa gaarka loo leeyahay waxa weeye waa isku mid imika kuwa noogu dani waa kuwa dawliga ha wax isdhaamaama jiro waxa weeye alla iskuulada private loo leeyahay iskuulada waxa jira hal arday oo kaliya wax qaldan laga helay hal arday oo kaliya soo maad garan kuwa dawliga imika iskuulada imika noogu iskuulada aan ka soo dhax saarnay hablaha badidoodu runtii waxay ka mid yihiin iskuulada dawliga waa bir rabaan beesheegi min wax nagu khasbayaan ma jirto waa iskuulka Sheekh Ali Ibrahim ayuu iskuulka imika noogu daran ardayda form 1 aan ku darso oo maamulaha laakiin mid baan ku amaanaya
ardaydii waxaan sameeyay qaarkood ninkii sameeyay uu soo xiray oo uu xiran yahay laakiin kuwa kale kuwii sameeyay ba wali naga maqan ugu sii mahadnaqaya inamada IT-da injineer Saacad Maxamed Ahmed Saki Lafyar haba kale reebi dabshi waxa la salaaba inamada adigu haba kale wiil iyo gabdhaba hablaha yaani runtii xafiiska imtixaanaadka ka shaqeeya ee hawsha u dhabar adeegaya ayaan runtii ee waliba sida sirta ah arinta aniga oo kaliya baa ogaan kara aniga oo kaliya baan sheegi karo saxaafada gelin kara waxa weeye cid ka waraysa ma jiro xafiiska imtixaanaadka waxaan aad iyo aad ugu hambalyeynaya sida qarannimada leh runtii aan islaamnimada leh ee u shaqeynayaan waxaan markaa ku boorajinaya cid kasta oo caama iyo aan ilaahdo culimada runtii in arintaasi qudheedu gurmad u baahantay in ay afa qaran tahay in ardaygii mushkilada jirta waliba si ardayda inooga adkaatay ardaygii isagii baa isla toosan indhaha ka gelaya waayo waan soo dhiganay halkaas maxaa jira maxaa markii hore ardaygii gaban jiray ee waalidka ixtiraami jiray de markaa way ilmahana inuu ducayno bishii Ramadaan baynu ku jirnaa oo masaajidada looga duceeyo ilaahu shabaabka noo hagaaji oo shuyuukhda noo hagaaji oo micnaha marka shuyuukhda daano culimada wax taqaana kama hadlaya dadka da'da sidoo kale sheegay waxba aqoon iska caamadan ka hadlaya iyagana inuu ilaahay barino inuu ilaahayna toosiyo inaynu alla barino oo cid walba waa alla barino oo waxa weey war imtixaanaadkii waxaan anigu aaminsanay wasfis badan baa haya hadii aynan waxaan wax ka bedelin imtixaan la qaada qiimo yeelan maayo uu qiimo beelaya hoosteena ka socdo runtii ila dagaalka xuduudaha bad ka diyaar garoodaad wax iska celisa bal gacantaadii oo ku xadaysa adigu ka war jeebadaadii xadaysa bal gacantaadii jeebadaadii kala ilaali waxaan haysaadana xafiiska imtixaanaadka waa ka imtixaan fiican waanu sameeynaa imtixaan aan u soo eegna ardayda standardkooga waan sameeynaa runtii anagoon isamaanayn aqoon-yahano graduates wax noo sameeya oo waliba iskuulana waxba ka dhigin waa sheekadan sheeka raqiisa iskuul hebel macallimiinta imtixaan waxaas waa tii wala iskala yimid waan barmarsiyo musuqmaasuqyadan lagu saxanayay oo lagu sameeyay wixii oo dhani ma jiraan sanadka maanta imtixaan adag fiican baanu sameeynay oo waxtar leh laakiin waa cunto wanaagsan hadaad sameeyso mar alla marka banaanka loo soo saaro qolo halka u taagantay ciid ku rogaysa damac iyo dhadhan midna ma yeelanayso afka laga dhowri maayo arday waliba fasalku xaq u leeyahay gelaya form 3 soo fadhiyaya waligiiba ha boodboodo waligiiba ha sameeyo waxa weey xaq qofna lagu sasabi maayo imtixaanaadkii shahaadiga ma galayaan imika imtixaanka shahaadiga waxa gelayo kaliya arday 12 sano dhamaystay nin walowba maqal qarankow maqal waalidkow maqal ardaygow maqal cidna indhaha looga weeci maayo seerfarka yagaasaan ku baaraynaa arday aan 12 sano dhamaystiray imtixaan fooforo noo fadhiisamayn ilaahumay 30% isdhimaan tiradii aan ku talagalka iyagu ahaa waxa weeye qori mayno cidna ku laaluushi mayno oo lagu baadi maayo ardayna looga cabsan maayo waalidna looga baqi maayo iskuul iyo maamulna looga baqi maayo nin walba surka ku soo dhigayna haat kitaab iqra kitaabka baa la leeyahay waa ka akhriso cidna la dulmi ma wada baxnayo oo kol baan ka wada baxnayo dugsiga sare ma soo door oo maxaa jaamacada ku gashay adu waan galay qaar imika ileeyihiin imtixaan dambaha laga qaado dugsi sare kuma tagin ardayda naftiisa baa qiraya halka noogu yimid wiilha noqdo ama gabar ha noqdo way soo geeyay cidnaanu magacaabi maayo jaamacadna magacaabi maayo laakiin jaamacadu walba ka taxadirto daawud axmed faarax ardayga maanta fasalka 8aad isagoo ku jira form 1 u gudbaya waa arday wuxuu gelayaa fasalkii koowaad ee dugsiga sare laftarkiisu ee markaa qabanaya muxuu markaa isagoo laftarkiisu miyaan ahayn arrin soo jiitamaysa hore u jirtay miyaan tan u eekayn haay waa eekayd laakiin xafiiska imtixaanaadku waa xafiis loogu talagalay annagu kolka xataa wasaarad la eego waxa weey waa xafiiska wax qiimeynaya miisaanka cadaaladdu saaraya waxa weey cid kasta mas'uuliyadda waalidku koob uu ka yahay koori ha ka saari waalidka maamulaha sameeyay laba dheh soo maad garan ardayga ogolaaday 3 dheh inta kormeerka gobolka ama iskuulka ku qoran ee wax ka qaban waayay haduu og yahay waka marka aanu ma jecli in dad dhaleeceeyo dad wax ka sheego waxba ma soo wado cidla wax laga sheega laakiin waxaan si guud baan uga hadlayaa waxa weey adiga waalid waa ku khasaare hadii maanta aan ku ilaa inankaagu waxba gareeray adigoo daawudi u baahdo $1 oon ku ilaado qalinlow $1 isiyo inanka keen shahaado foofora ku siinayaa ma waxbaan ku tarmiso waxbaan ku yeelay
حقيقة نبتي وحوي والله يا وحبان كويالي المها جنوان دلي وايو شهادة أو علم جي لهين باكوسيي هل كل تجي أيوه حقوق قبل ماشي وطجبا جنب ما جرانا أيوه أنا العقبان كعقاتي حتى أنا قدام بيرلاون نقول عليك داود يوم كعقاتي أديكم مركا وحوي واحد الدم بيجا محمود داود سيدا يجي داود دم بيلا كسوقات أدنى دم بيلا لباس كسوقات marka waxa weey cid qeel kulih ma jirto anu ilmahay way magaalo ilma daawud iskuulada deedhigtaan hadaan faa'iido ku ogahay ma bootiyo anaga waa dhariga guntiisii fadhiye maan iraahdo form 3 uga bilaab form 4 qaar baa jira aan dhalay anigu oo uga dhaartay shahaada Soomaaliland intuu booday hatta imtixaankii Soomaaliland aan uga dhaartay oo imtixaanada dalal kale ka soo galay ma jeclin magaciisa sheego oo ina daawud oo ilaahay ugu ogi hay markuu booday aan uga dhaartay ها إنا وقولوا أنت حكي سومالان هذا يجا كنا هاي بولشة أنا أقدر يا داود هو حوي بولشوي بالربدان وين كتيرنا وحنا لو ده هجوجنا هي نسكدينه خاينين من لو ده هجوجنا هي عرضي والد معلم مامولة وروح على نسكدينه إلى هاي كبقنا كوحوي وحفرينت لو قدام بيسات هاي امتحان كدولة هاي لا وحلا جري دونا بعد العيد كل قاعنك قدام بيا وسيرك مركو يمادو سجى كل واقع دونا طبعا يا قدر بس شون قرصه هو يهدو لهاي إدمه أنت تعرف أرض جوا هايستا ما أنت أرض جا أو حبك جريري موبل كسر فكرة يو ما تدك جوا أرض أنت والله باركرا وعرورتي ود دال والده وعرورتي إنه حرام تكلم دال أو خاين ماذا إنه كلام دال أو إنه كإلالنا أو إنه رنتي كإلالنا أو إنه كلا هذا الله وحوي أو بشهر رمضان وأرضي مساجدة جلا أو إلهي بري إنه إلهي تعلينته إنه بيريو إنه فضليو تيت يقص إلهي هبرينا سيدو كوي صوت دو قار بابا صوت دو بيو كو أنا أركيو يوتيوب كان كو أركيو لها إلهو محي قداود قلويني إيو محيو هالقا بدت كهيي وروح وي ها وروح وي يعني إلهي كبقى واحد سميسان أرضي دوي وحبرتها أو وحخرستا أو وحوي أنت هذا يربو إلهي كو بركينه وريك دركاga yareed adigu leedahay baa kaaga qurux badan oo kaaga damiir wanaagsan oo kaga habisan tahay dhar irgisa oo soo xirato war green arad lahayn waxba ku tari maayo oo ama mobile lagu soo shaqeeyo ama qofad ka qoratay darajo arad lahayn waxba ku tari mayso intaada yar buu ilaahay ku barakaynayaa oo tul cilmi darajaad dadkana ilaahay uu kala sarsareeyo cilmi intaada ku qanacsano waxa taqaana ku qanacsano imtixaanka ugu fadhiiso waxa weey caruurteedii baatiin idin la cilmanihin intaanu in la wadi karo wax waa idin la wadwadna laakiin waxa ballan ilaahay ah oo naga go'aana jiitin dulqaad dambo jiitin noogu harin ma jiro aroorta hadaan xafiisyada laga albaabadan aan wada xirayno oo arday la waayo jiitin la isku ahsan dambo la isku sameeyay يا حفيز كامتحانات كقرأ Somaliland داود أحمد فرح مركنا وحن دوري أنا سجنا وحكوا ويديو أنا رضيت أسي بودينتها قيبت الدكسية دجار كلول لي هاي موسى محمد شدة حياك الله وحنكو كبيا أنا إمك هيا أردي فصل كيس الديرات كبحلا بدي كنت دبي تومك لا بدي كوني استديو تومك وايمك ولينا لو مفرس أرديها waxaan ka marakacayaa yani hadalka uu lahaa gudoomiyaha imtixaanka qaranku halka waxaan ku hayaa arday ka baxay eedkii 2017 wali looma fadhiisan waana form 4 marka horta in badan baynu ka hadalay boodada iyo qishka horena waxaan u niri ummad markii doonayso adeeg aayaheeda inay hagaajiso dugsi wanaagsan bay samaystaan dugsi wanaagsan oo iska dhisan ma jiro dugsiga waxa wanaajiya inta wax ka dhigta inta maamusha inta wax barasho u tagaysa bulshada la jaarka bulshada uu ka tirsan yahay ayaa horta wax wanaajisa wanaaga dadka qof si uu yaqaan qof wanaaga oo haysta dugsi fooq oo rinjiyeysan oo dhirna ka beeranta qofka bani aadamka ba qaali sidaa darteed dugsiga waxa wanaajiya macallinka jooga maamulaha jooga ardayga jooga gudida dugsiga
guddida waalidiinta bulshada uu ku dhex samaysan dugsigu ay horta wax wanaajiya maanta se waxaynu maraynaa waana dhegaysanayseen waana la daawan doonaa guddoomiyaha imtixaanka qaranku wuxuu ka hadlayay waan uga marakacaya maxaa yeelay nimaan xabaalgelin oo kaaga warramin alla ku cadaabay soomaalidu tidhaahda waxa weeye waxbarashadu iyadaa og fiilka annagu waanu ku jirno iskuulladii baanu ognahay macallimiintii baanu ognahay maamulayaashii baanu ognahay boqolkiiba 80 waa arday wanaagsan waa arday dadaalaysa intan xumi waa nambarka yar intan kharibani waa nambarka yar sidaa darteed waxaa horta qurux badan inaynu fahanno wanaag iyo dugsiga wanaagsan waxaan dugsiga waxa wanaajiya macallinka jooga maamulaha jooga ardayda joogta bulshada uu ku xeeran waalidka intaas horta wanaajiya dugsiga rinji iyo dhir iyo ma wanaajiyaan imka waxaan idin tusay arday sanadkan 2017 2018 ka baxay eedkii waana foonforada nimka imtixaanka u fadhiisanay taas waxay ka baysaa hadalkii gudoomiyadu la marka laba mid ma ninkan maamulaha ka buuxinaya isagu de aynu oran karnaa isaga ma gudba mise ardaygu document sidna wata ayaa inankaas imika waa tawan ku tusay 2017 2018 ayuu eedkii ka baxay hadda lama gaadhin wali looma fadhiisan waana foonfor marka aqliyada taa inagu raraysa wayna doqmaynayaan wayna fuulgaraynayaan wayna ugu qoslayaan anagu hadaan waxbarashadinahay waxaanu diyaar u nahay haday kuna ku kufreemayso kuna ku muslimayso ilmaha wanaagsan ee waalidka wanaagsan ka dambeeyo ee iimaan kale ee damiir kale ee xishoonaya xumaantana yaqaan wanaagana yaqaan ee waalidku la soo daba socday grade 1 ilaa form 2 alifki ahlan wa sahlan oo soo dhaweynin ilmahaas dhaqan iyo akhlaaq duwata naga la tacaatufeen annaga lafteeda la tacaatufeen waxaanu ognahay ilmahaas sinaba inaanu dhacayn waayo jaranjartii loogu talagalay iyo manhajkii loogu talagalay intii dosage-ku ay ka qaadan leeyihiin ka wada qaatay guud ahaan daawadayaal barnaamijkii gaarka ahaa ee waliba waraysiga ahaa ee aanu la yeelanay gudoomiyaha xafiiska imtixaanaadka qaranka Soomaaliland iyo waliba agaasimaha waxbarashada gaarka loo leeyahay Muuse Maxamed Shidax Ayaakalla intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa dhinaca duubida barnaamijku waa Axmed Sitaar dhinaca habaynta barnaamijka isku dubridku waa Engineer Siraaji dhinaca tibintana waa aniga Maxamed Cabdi Qalinaytan barnaamijka la mid ah ku kulmi doono dhamaantii daawadayaal waxaan ugu dhaafinaa sidaas iyo nabadgelyo